وعموقتين قفل بدولة وشقايا وهلا حقوق ليسا وعموقتين أمني وحلقة قبتي وعموقتين الدنيا الناس الجيستي وعموقتين إن دولة فدرالكا يقولياش كل الدول يدول الدولتين يعد والبا إن الدنيا بيصدقوا إنه هرمركو تلاب سنة ما شاء الله وحموقتين رجل سياس درادد وحاد وقتان إن كفكرنا إن لما طريق نافران دايكلين إن هرقوا صعنا إن نجيبوا صعنا قريب إن شاء الله هدي ربطان إن نجيبوا نقولنا مركا وعنكون نقولنا عرادي مدوجي يدباتدي طريق الكلية نافران مركا سيدا نروح شجنا وإن نروح صعنا سي مركا دتك الصوماليات أنا شجنا عن ذي شيءنا إني موقتين ودقالي سوها جاي إني موقتين وأمني سوها جاي إني موقتين أدوية الناس الجسدي إني موقتين إن صومالي الدنيا ما أنت يعرفتو مستقبل كالدنيا ما شاء الله سيدا درادد وحن مرة بعد عطنا يا نكون نقول إني حافظة مدرسة كده حرنادان الله أكبر وعن عطنايا إن نكون نقول إن قبيل أنا يا قبيلة تبغون نقول وعن عطنايا إن سيدا ولاله يجور يشجعن أن كردنا وحبرشة ونستعمل قلنك أنت عن استعمال لهن قوي إن شاء الله وعن زود وينايا إني وناكسنتاي سياسة inay in badan sharaf ku noolaato inta in yar oo kooban kaliya ay gacanta ku haysan lahaayeen dhaqaalaha dalka waxaan soo dhawaynayaa siyaasadda in dalka la wada leeyahay oo aanan qof gooni u lahayn waxaan soo dhawaynayaa in 75% ay tahay dhalinyaro dadka Soomaaliyeed oo ay muhiim tahay inay dhalinyaradu ogaadaan calankan aad aragtaan dad idinka idin la mida ayaa xorriyadiisa keena inaad is abaabushaan oo aadan meel iska fadhidin oo dalkiina idinku aad u tashataan sidaas daraaddeed waxaa muhiima inaanan qofna laga ogolaan dhaliil dalka wax lagu duminayo inaanan ogolaan dhaliil ujeeddo gaar ah leh oo lagu fushanayo dana khaas inaanan ogolaan dhaliil la doonayo in lagu dumiyo iftiinka nolosha ee hadda inoo soo ifbaxay waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan Soomaaliya hore ayay u socotaa gadaalna u noqon mayso insha Allah waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed haddii aad hore u arki jirteen in la niyad jabo way dhammaatay waqtigii la niyad jabi jiray waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed haddii ay jiri jirtay 27 sano la soo dhaafay in markii isjijiid yimaado inay madaxdu niyad jabaan madaxda idin hortaagan ma aha kuwa hadday jirto qof Soomaaliyeed oo ka walwalsan maalmaha la qaylinaya ama buuq siyaasadeed dhacaya sidaas daraaddeed madaxdu qololkeedii ku laabanaysaa waxaan idin ballan qaadayaa inaan idinla mari doono ilaa meesha ugu dambaysa aan tegi doono Soomaaliya waxay ku socotaa meel barwaaqo ah annagaa u jeednaa oo idiin soo aragnay dhulka barwaaqadaan u socno iftiin baa ummadda Soomaaliyeed u yimid waxaan rabnaa inaan iftiinkaas la qaadno kulliga waxaan soo jeedinayaa sidaas daraaddeed fikir xumada in lagu bedelo inaan gacmaha isqabsano inaan u aragno in nabadda iyo dawladnimadu ay qof kasta ay dani ugu jirto inaan meel uga soo wada jeesano shacab iyo dawladba qofka doonaya inuu dumiyo wax yar oo inaan ku bedelno dhaqankii ahaa anigu haddaanan wax helin dalkaa la duminayaa dalkaa kaa horeeya adiga inaan ogaano in qof kasta xisbi kasta iyo koox kasta ay ka wen yihiin
jiritaanka calanka nabadda iyo dowladnimada نعم sidaas daraaddeed anigoo u mahad celinayaa walaashii khadiijo iyo dhammaan dadkii waxaan soo abaabay waxaan idin leeyahay mar walba meel ayay taariikhdu ka bilaabataa maantay oo ay tahay 63 guuradii ka soo wareegtay markii calankeenna dhidibada loo taagay cidda doonaysaa inay ka mid noqoto taariikhda cusub oo dalkan laga samayn doono waxaan leeyahay kaalay annagana soo raac waa mahadsantiin